community oo kulankaas dhexdhexaadnaa martigelisay iyo waxaan kaloo umahadnaqaya martigaan oo kulankaan dooda lagala qayb qaadanaysa waxaan leeyahay kala hadlo waxaa fagaaraha u yahay iyo ansha fagaaraha kadib waxaan ku weydiin doonaa maanta aniga waxaan ahay idinka ayaa ka bilaabaya kamida marka waxaysan doonaa dhegeysan doonaa walaalkeen ayaan loo gaadiin doonaa sharaxayaa sii sharaxo kadibna dooda ayaa bilaaban doonaa fagaaraha kulankaa maquulkiisa ay raadanaad wey dadku waxay isweydiinayaan fagaaraha muxuu yahay fagaaruhu waa goob wadaaqan si loo gaaro isfahan kulankaan ku istixraabtanaa waxaan soo qabanay kulankaan u farabadan kulankaan waxaan ku naqanay muddo gudihiisa waa kulankii labaad oo maanta si bilow in caasimada dowladda goboleedka puntland ku qabanay kulankiisii sideedaad ayaa laba sano ka hor waxaan ku qabanay caasimada jamhuuriyadda soomaaliya muqdisho soomaaliya ujeedadu waxay tahay ummadda soomaaliya goob ay ku wada hadasho goobaha waxyaabaha aasaasiga aan isku haysano si aan wayno dowlad midnimada oo ummadda soomaaliya isu keenta kadibna ummadda soomaaliya u hooseysa oo naga dhawaaqo ujeedada leeyihiin annaga xilliga ku jirno waxaan xaqiiqa ka nahay ujeedada ugu weyn oo leeyahay waxay tahay ummadda soomaaliya ay hesho goob lagu wada hadlo si loo gaaro isfahan kulankaan saddexdhexaadanaad wuxuu ku soo aaday xilliga ummadda soomaaliya ay ku jirtay jahwareer aadna khatar wax midnimada ku ah waxaana dadkii laga markii dowladdii jamhuuriyadda dowladda soomaaliya ka baxday kumeelgaarka oo la doortay madaxweynaha hadda jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ugu waaweyn ee dowladda soo doortay waxay ahayd inay waddanka diyaariso inay ka dhacdo doorasho habka xalada si aqoonta soomaaliya waxay dowladda soomaaliya garatay inay doorashaas aysan dhici karin hadda maanta waxaan marayna waxaa weeye xilli ay soomaaliya isweydiinaysa dhammaan maxaa xal ah waxaan taasi maanta ku saabsan waxaa weeye waa doorashada caskaran ee hadda taagan waa waqtii saddex mar ayaa dib loo dhigay ummadda soomaaliyeed bay leeyihiin sidee loo gudbaa xilligan adag oo aan maanta awalnaa dowlad soomaaliya ummadda soomaaliya keli karta aqoonyahankan maanta waxaa loogu yeeray kow walaalo ayaa sharaxay waxaan ku jirnaa dowladda bulshada guddiga doorashooyinka heer goboleed iyo musharax siyaasi ah oo hadda loo fadhiyo iyo xildhibaan dowladda dalka soomaaliyeed waa dad aqoonyahanka oo kala duwan oo halkaa uga fadhino inay maanta keenaan sababta looga bixi karo doorashada caskaran oo labada kun iyo dadkooda taagan si aan wada dowladda soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed islaama gasha aad baa iga mahadcelinayaa haddana waxaa la sheegaysaa oo barnaamijka loo wadi doona intaan geli ka hor waxaan ku qabanay meelaha ku qabanay mashriga waxaa ka mid ah nairobi waxaan ku qabanay yurub waxaan ku qabanay amsterdam maraykanka waxaan ku qabanay columbus minneapolis maraykanka laga asaasaya waxaan kaloo ku qabanay ottawa canada marka meelo fara badan ayaan ku qabanay waxaan jeclahay soomaaliya noo gaaro farxad zaada oo gooniya ay noo tahay inaan maanta aan ugu sugannahay caasimada gobolka puntland si oo loo helo oqolkash ummadda soomaaliya ka imaanaya haddii ilaahay bara waxaan jecelnahay aan ummadda soomaaliya kale aan gaarno si aan waddankaan aan uga tashno aniga sina dowladda soomaaliya korsannahay hadda waxay la eegaysiin walaalkeen oo maanta barnaamijka miidaa weli doona isaga waxaan ku wadi doona kadibna su-aalaha ay weydiinayeen laysa dabeer tacaasiisho barnaamijka fagaaraha sidaa ka socotaan fagaaruhu waa barnaamijka badan waxyaabaha mawduucyada inta badan arrimaha soomaaliya ku saabsan dooda mawduuca maanta waxaa weeya doorashada caskiran ee labada kun iyo lix iyo tobanka maxaa xal ah runtii waxaa aad u mahadcelinayaa fagaaradan waqtiga horaana noo socday sidoo kale ninka looga yimaadcelina sida qiimaha ee kadhibka leh aad barnaamijka looga soo qaybgasheen waxaan jeclahay marka ugu horeysa inaad ila soo dhaweysaa si loo rabaa musharax madaxweyne cali xaaji wasare waxaan leeyahay dhammaan baanalka ee ka qaybgalaya dooda iyo dhammaan inta kasoo qaybgashada aad iyo aad ba umahadsantihiin waxa weeye maxaad ku soo kordhin kartaa mushkiladda maanta soomaaliya taalla oo ka mida oo la mida mayd meel saaran waxaan rabaa inaan su-aasha uga jawaabo hal shay saxafiyiintu waxay weydiiyaan barnaamijkaaga siyaasadeed muxuu yahay waxaan mara badan daawadaa musharaxiinta xilka oo walaalaha la tartamaya waxaan dhagaystaa iyagoo ka hadlahaya inay wax ka qaban doonaan caafimaadka iyo waxbarashada
iyo mataqaadulka iyo deegaanka iyo ciidanka iyo ilaahay intuu ku ray barnaamij dheer qaar baa buug xataa soo sameeyay laakiin markaad ku noqoto constitutionka Soomaaliya madaxweynaha xilkiisu muxuu yahay mushkilada ugu daran haysa waxa la mid ah waxa ka mid ah xilka rabta anigu u tartamaya ma aqaana anu mas'uul kama yahay waxbarashada mas'uul kama yahay caafimaadka mas'uul kama yahay ciidamada madaxweynaha shaqadiisu waxa weeye custodian of the constitution wa ilaaliyaha dastuurka waxa laga rabaa dastuurka dib ugu noqda faqrada waxa ma inay tahay waad heli doontaan waxa ka mid ah inuu soo xusho ra'iisul wasaare awood u leh shaqadii dawladda inuu fuliyo waxa laga rabaa inuu magacaabo danjirayaasha inuu qaabilo kuwa dalka imaanaya taliyaasha ciidanka inuu magacaabo marka golaha wasiirada soo gudbiyaan problemka ugu daran oo madaxweynaha ra'iisul wasaare soo haystaan waxa weeye annaga tartamayna xataa shaqada aanu ka hadlayna waa shaqada ra'iisul wasaare bal dib ugu noqda cakalada marka wada lambar 1 qaadaba waxa fahamsanay shaqada laga rabo anu ma rabo shaqada ra'iisul wasaare inaan qabto waxaan rabaa ra'iisul wasaare aqoon leh aan ku soo xushay shaqada inuu qaban karo ballan qaadaya dawlad macnale inuu soo dhiso inaan soo magacaabo xilkan aan u daayo lambarkuna waxaan rabaa dastuurka Soomaaliyeed inaan ilaaliyo inaan la khilaafin dastuurka Soomaaliyeed iyo shaqada igu qoran dastuurka waxaan kaloo ku sheegayaa dadka hadda markaan istartansiinay musharaxiinta maanta waa Isbaaniya keligii baan fursad waaye musharaxiinta oo dhan qaarna waxay leeyihiin khibrad xagga khaaska ah oo waxay ka soo shaqeeyeen private sector-ka qaarna waxay leeyihiin khibrad xagga dawladda iyo NGO-yada ah waxaan ku jira dadka ugu kiyaha oo kulansaday khibrad xagga dawladda ah oo wasaaradda waxbarashada Puntland wasaaradda Rahiima ka soo shaqeeyay iyo khibrad xagga shirkadaha oo soo maamulay shirkadii dalka ugu waaweynaa waxaan qabaa labada markaan isku daro inaan Soomaaliya uga faa'iideyn karo hamba igu jira inaan taariikh ka tagaa qabaa sheekayga waa ka weynahay markhaati baa ka tihi shaqada aan ka qabtay shirkadii wasaaradda waxaan su'aasha labaad oo walaalkay weydiiyay maxaa xal ah anaga niman baa noo haysta warqada waxay leeyihiin 1 minute 2 minute 3 minute halka ugu fiican waxa weeyaan ku sheegaya halka ugu fiican waxa weeye mar haddii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ra'iisul wasaaraha waqtigiisa dhamaaday labaduna ay musharaxiin yihiin baarlamaanka waqtigiisa dhacay madasha aysan isu soo noqon karin halka ugu fiican waxa weeye waxa lagu xallin karaa in la isu yimaado oo musharaxiinta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ka mid yihiin iyo annaga iyo bulshada Soomaaliyeed oo maxkamadii sare ra'iisul baarlamaankii urladii bulshada dabeedna aan ku heshino road map aan leenahay lagama khilaafi karo maalintaas baa doorashada dhacaysa aqalka sare aqalka hoose iyo madaxweynaha doorashadiisa wada hadallo waan heshiin haddii madaxweynuhu maalin samaysto ra'iisul wasaaruhuna maalin samaysto beesha caalamkuna maalin sameeyaan waxaa idinka ballan qaadayaa doorashadu inay gaadho 2017 wax la qabanaya aysan jirin ugu dambayn waxaan ku soo koobaya hal shay oo kaliya halka shay waxa weeye doorashada dhici doonta soo socota haddaan ku guulaysto waxaan ballan qaadayaa inaan gaarsiiyo warmaanku jawaabtu waxa laga bixin karaa waa laba dadko بسم الله الرحمن الرحيم ولا شيء وحنا ويدي سؤال شأن سير صومالي لهم من كرا الحمد لله هذا ولا قد بحي كل قبائل كل يسد لهاي وما نقف قبيل كل سنة حمر سي عادي لوجه الكرا ولا استحقاق تك صومالي ولا ولا لكن هدير الربع إن لما دايا وإن سمايا دين الشيسين طبعا وإن إسعافية وإن حوالي إيمان كلا هيستو ليسوا عليها هذا حمل تبدو البريه الهايان بيره الهايان لما هيستو ما كيدنا أن تعملها واحد مركز أيام اللي كلا تبي سدا على مثل الكلام عندك كلا برا قومية نمر يودن نمر إسماع نمر حتى ما دبنا ده جوتي قفك دارك ما قفك أجنبية وحفوها يستاهل تقف مدورة ما كلا بلا نقص عليها marka Soomaalidu inay waraantinimadooda iyo ahalnimadooda Soomaalidu badan waxay yiraahdaan ma aha qabiil waa qowmiyad marka in la baro dadkaas iyadoo barasho u baahan siiba dadka yaryar lagu ababiyo hadda oo aan loo sheegin waxyaabihii taariikhda xumaa ay tahay waxaan yeerayaa xildhibaanka
دولية وإن الله علينا وبعد ذلك وسوى الماجلة سؤال شو عاوز الصومالي السودان اللي يكون كنا جوابته هو وضعي لكن يا مرة على الربيع وسوقي ما درت ليش وحنا إسلام يبقى يسلطان يا حتى يدعنا هلا دريرنا ودريرنا حتى يدعنا وهشيم marka waa in raggaas lagu noqda ma garata oo ayaga la isu keenaa oo halka yimaadaan kuwa muqdisho jooga iyo saawka joogana halka yimaadaan ma garata garow yimaadaan oo ay islaamka arkaan islaamkuna tago saawka tago wax kale ma jirto dad wax isdirirsan oo jira ma jirto ma garata ma fahantay so ya waxa la rabaa waxaan ka wadaa isimadeena in la isu keeno way garateen Soomaaliya isimadeena in la isu keeno waa ayaga ayaa talada haya yeah of course hadda dawlad baan leenahay dawladyan leenahay ayaga iyo kuwaas oo is ag fadhiyo bay nabadda ku imaan kartaa waa mahadsan Soomaaliya ibtaaj xal loo ما أنا وضع الإخوة مش هيك القوة سو كوبايا وحاوية قريش وأنا نقلي أنت وقبلها حوالة وسلاية وتمت تعالى سكرتي ركي روك يضيعها بين هاي القرآن سودجين هذا حملوك عليه السلام كبعد واحد غدين وحاكي اسمتين دولتي وقعد الدنيا الإلهي وفعل وتوصل المسلم أنا هاي وحمد الله وحكم جملتك عن صوي ما كانوا أمرين قليل يا سعيد عشرين على الإسلام يبغى راح عليك وحاليك وحوي الصومالي إن أي دين تروح أنا هذا كله أي دين تقول كيلو كنتم يعني درتها أنا وهذا بوي حتى كتابها هذا هو تنبخي بعمري وهذا marka waxaan rabaa in looga taxaa ilaahay baa isku soo dejiyay haddaan diinta islaamka raacayahay dad waxaan nahay runtii character ahaan markaan faanka ka baxda way character ahaan waxaan rabaa society haddii la yidhaha waa munaafiqiin soomaalida aan ku jiraan runta marka muuqata kan diinta kuushaa markuu baxo lagu aqdaamaya opposite kan siyaasiga ahi markuu siyaasadii wanaag kula hadlo markuu kaa baxo shaqadii uu gelaya كان جميعنا هي أمك وكبيرة برامبرو برامبرو كمان دول كأوه هي أمك وبحر وكل عليا وهي وكبر برامبرية وجدنا وكل عليا بس واحد كذي واحد سنة كذا واحد أنا أسمع من كل عام ودين تصيب هذا وأنا بسمع من قولها دي كانت كرسينه داود على كذا يوم سرور على عقيدة الروح على وعلى الدين وليها أجانب رجل وعي على قف دين تيسو وأمك وكبر هتنبك ماشي وعالي qofku ninka markuu kaniisada joogo markuu joogo meesha yuhuudi tambalka markuu hinduuga joogo markuu masaajidka joogo halkaas saa ugu adigu socdo qofku waa khushuucsan yahay diinta runtaa waxay bilaabataa markaa masaajidka baxay dhaqanka taad adoo sooma tibaadadoo cadayga wato oo maanta arkaha maqashay markaa jimcada meesuug habeenkii cashaadku markaa baxday haddaad lacag aroos qabiil gashiyo taas axsuta baraysa haddii diin maaha marka in ilaahay uu nafso diinta shay tahay dhaqan ahaan ugu dhaqanno waxaan rabaa ka soo waabixi karaa waxaan ku darayaa halka inkii 4.5 wax walba cadaaladda ka hadasha ilaahay madaxda cadaalad ha tuso أقول ما سنتين طبعا برامج وادي هاي وسيب لقل دولا ضدنا سؤال ويا قبل سؤال فربضان أو ضد قاتل قبل نمط صومالية فلو أهم إن لقيت جوابنا طبعا ونقول كنا وأمنا ونكبر حيان صلاة المغرب على كلام حتى على إن السؤال لابنه عيد سؤال قبتنا مركز هاي فحسيك لقل دولا برامج كان طبعا ولقيت جواب نمط سؤالي أي سوق بجيان إجازة برنامج كسر الجلي وحتى على عبارة كذلك قبلها هناك بلاو. جواد أساسية يا ولاش صدق أفر ميلاد كان هذا جواد بحاجة شيء مركع حق على يا يا. سؤال أنا ويجي هذا الحلوة. مثل ما قلنا الحلوة أنا صوت
cadaalada ka shaqeeya aan ismaas iyo maxay wax ka madax bannaan marka see lagu heli karaa xildhibaan ka madax bannaan laaluushka inkastay hadda qaataan xildhibaanadu intay gaarowna qaataan laaluush oo madaxweyne siiya lacag ku laaluusha ay doortaan see lagu heli karaa xildhibaan ka madax bannaan laaluushka oo cadaaliya oo soo darta madaxweyne cadaaliya dina dad u qabta wax muuqda أنا مقاعد واحد وأنا بشير عبدي دكتور جامعة DSU قارهان كلية السياسة الإعلام العالمية. هل كان واحد قوي الدنيا مشاركة سؤال على حياة ورسالة وحاول تفكرتي ورشدي بطلان الله يكون يعطيكم وهو برسولي. baarlamaanka marka wax dooranay waxay ahaayeen 66 maanta waxa uu socotaa muqdisho ama waramay Soomaaliya oo ay tahay baarlamaanka 225 ay xaaj warsoo halka 66 baa ku soo bixi weeyay xagga sayada u soo bixi su'aashii labaad waxa weeye ay xaaj warsoo waxa noqotay wasiirka waxbarashada Puntland waxa haysay hal sano iyo bar maanta waxa uu socotaa masiir qaran iyo ina wadan maamushid waa madaxweyne ka noqotay ama madaxweynaha koowaad Soomaaliya oo Puntland ma aha Puntland oo gobolkeed ku fashimatay wasiirka iyo waxa la yiri Cabdul markaa sanadii baray Cabdul Algaas biray shaqada baa sameeyay anagoo qoysana wasiirku ugu fiicnaahay baadana lagu bedelay maanta xagga u socotaa iyadana teesa ka yeerisata oo sidii hore kale lagu bedeli doonaa mise waxaan rabaa in ku aado oo dadka dalka wax qabta su'aasha xigta waxa weydiinayaa dhammaan ragga oo su'aasha ugu dambaysa Soomaaliya maanta waxa uu taliya waxa la beesha caalam ولنو صومالي من هاي نو كمان أحنا بيش عامته وحنا بعرف السنة سنة سنة يروت نمشي يروح ما إنه نو كمان أحنا وبيش عام كمان أحنا أنا تشكر وأنا جاركر مصير قرن ما نقصد واحد على هذا من الحوار على طوريو إن أكون صوت ثاني لا يصير عصري أقل كعب ولو أنا يا هالك هالك وبيسني agreement ka tan kula galay sida way roosha baarlamaanka anaga la nuushina lacagtana anaga siinayna wartaasi laga yeelka ay xajoortanayo dhamaan xildhibaanka iyo ay xajiyo iyo cali masar cali fisna macaankayga oo ma santii salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad u maasay رجع ثلاثة إلى عندنا ما دام وين هذي وين قبل هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعافية والسلام ولا أدوان إلا على الظالمين بعد آدم منها الرحمن فقالها سؤال شيء بهرتا وشيء لكن وحي يروح حلقة أنا وحان كتابنا ينكر عليه لأنه وحو يحلق وحو ربع السين دعان عليك كما فضولا لما كنا يلبيو تومكي أنه محمد كيوغنا وحن قواني دوشيسينتي conflict resolution نينكي ياتي لو تخصصي arrimahaas iyo aniga iyo Cabdullaahi Xaaji Daybaana nabi ma ahayna noqoto si aad waxyaabo badan u saarayso ama maalinta waxaan sheegay Soomaaliya inaan dib dambe isugu tulmay aan macquul ma wahay isuguna tulmay aan reality face gareyno sidee u kala tagnaa hadii kale waxyaabo badan oo wax lagu xalliyaa jiro in la eego ay tahay oo iska inta waxa ka mid ah tusaale waa shay daayibta Soomaaliya waa mid Japan 1945 kii laba bomba lagu dhiftay مليون دكتور دو ميجا والله دور مليون وشيء يساك دور مليون ودور نبو والله رج وانتي وكان قرآن كجبان ما كجبان كتاي جاري سوالي ده هرا هذا بمسوحتي رجنا ورج يهره هذا لنا وانتي سوالي ورج يهره شن بيوكل قاد بالميل كبرت وحتي الكو وان رج لابو وان كلكال صدق وأذب حجة من رجع وحكسه هرجيله نعس نعسنا وحكله نعس كالكال
udub xaje isagu waa dhexdhexaad oo qolada malaa ku biiraa dhinac ay u badatay noqonaysaa udub xaje maaha urur ilbati min rijaal kuwa dhahayo maaha laakiin udub xaje maadaama guryaha aan udub dhisan jirnay udub iyo ka samaysnaayeen hooyada ninka ku kalkaala oo had iyo jeer la shaqeeya oo uu ahaa u jajaban marka anagu waxaan baaray ciidamadii Soomaaliya kun nin oo saraakiila kulliyadda jaalisiyaad intaan qaran ku dhiman 1989 baa waxa loo qabtay seminar ku saabsanaa Soomaaliya inay sidaa noqonayso inay saa u burburayso kulligeed wada kala qas kun nin bay ahaayeen barnaamijkii waxa loo qabtay la dhahayo Soomaaliya xaggee baa u socotaa dhinac walba laga tusay Soomaalida waxa la sheegayaa ciidamadeeda inaanay berigaa ku jirin min raga iyo nikalkaal midna xildhibaanada maanta jooga ee qaranka Soomaaliyeed marka anagu la joogay oo aan go'aankayga gaaray waxaanu ku qiimeynay inaanay ku jirin nin raga iyo nikalkaal haddii maanta la firayo anaga Puntland haddaan nahay waqti dheer oo qaaliya baa inaanu koonfurta eegno ku lumay waxaan leeyahay waa waqtigii aan dhinaca waqooyiga eegi lahayd Soomaaliya haddii la rabo in la soo celiyo go'aankii Jabaaniiska ama Burma ama wadamada lamida Pakistan East iyo West marbe maanta ma jirto waa laga qoostay ma soo noqonayso anigu waxaan leeyahay waa in dib loo eegaa oo aan waqooyiga fiirnaa meesha aan koonfur waqti qaaliya ku lumay waa in waqooyi bari oo inaga ah iyo waqooyi galbeed oo xagga ah inta la isu tago halkaa qura baa u bannaan inuu ka soo noqdo qaranka Soomaaliya waana mid aan la eegayn dadkuna ka indhalaayin waana xaajo dhab su-aashu waxay tahay dowladda Puntland oo soo noqonaya aadaan ugu mahadcelinaya walaalkayga barnaamijka fagaaraha oo ilaa heer qaran gaarsiiyay aad baan ugu mahadcelinaya dadaalkiisa dheeraadka waana aad baan ugu mahadcelinaya laakiin Puntland baan noqonayna Puntland waxay xal u burburaysaa waana ka sii jeednaa waana laga sii jeedaa si dhab waxaan rabaa inaan ku soo eegno aan dibadda u aaso kow su-aasha isweydiinta mudan waan rabaa inaan musharaxiinta weydiiyo iyo xildhibaanka iyo walaalkayga jaamiciga Cali Faysal Puntland 2001 ma gaartay laano waxbaanu samaysanay waxaan 2001 hana la gaarsiiyay ma gaarnay mise weli ma gaarnay anigu waxaan ku jiraa dadka aaminsan inaynan 2001 gaarin haddii aan gaarnay sharaxaadeed baan rabnaa dad badan baa waxay aaminsan yihiin 2016 maran 2001 weli maynaan gaarin iyagana waa weydiinayaan ma gaarnay baan inay caddeeyaan iyagana waa laga rabaa taas waa midda walaalayaal waxaa la rabaa marka go'aanku casiimuu leeyahay go'aanku waana kharaar yahay waana dhib badan yahay markii go'aan la qaadanayo iskama fududo jeclaysi maaha waxa weeye haddii aan la gaarin 2001 sidee ku gaaraynaa waxtanay markaa haddii aynaan gaarin anigu waxaan aaminsanahay inaan 2001 gaarin sidee ku gaaraynaa xamar waxay u burburaysaa oo aanay u hagaagayn wixii ay Puntland qarka ugu fuusheenay burburto oo maxay tahay magaalo madaxda iyo madaxweynaha oo la isku garo وانا كبح بالله توفيق الله والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام طبعا صدق سؤال هذا الويديي جوابها وقت بينك كبعد سنه الصلاه من هذه العام قف لقى تغيب له قف والبو هذا يا عاوز اسو قبل وسيدين يا marka waxa jeclahay inaan ku soo dhaweeyo علي حاج وصبح بسم الله الرحمن الرحيم لبيه توب لبكون أفر يتوكل وخاوف تستنتج Puntland وقف الشرنتي هذا كوف الشرنتي وحاك على خلدان وحنا من السنة هاي تدوينها Puntland أمسيه هنا البوليسي محايا لي يسبدل كي وخبار كاكيري وحنا فياك المشرحين تا وحنا هانيك وهري أو ير Puntland وحنا كدعي دونتا دور الشفر أو حلالة وحنا قفكي اسكو هيي المشرحين تا markii la iga adkaadana waa ugu hambaliyay waana la shaqeeyay madaxweynaha arrinta labaad waxaad ka doonaysaa federaalka 66 bawaaqan weyn siyaasadda waxaad moodaa in kasoo aad guutiga sayniska dhiganaysid waa kugu cusub tahay siyaasadda waxay u baahan waqti dheer waxay u baahan tahay inaad adkaysato
waxay u baahan tahay inaad dalkaaga joogto waxaad la socotaa ilaa iyo puntland 4 doorasho loo tartamay dadkii tartamay hal qofna ma ka haysaa anuu waa joogay waa ka shaqeeyey wasaarad baa la ii dhiibay ma oraan madaxweyne rabayo mataqaana wasaarad ma rabe wasaaradda baan ka soo shaqeeyey wasaaradda inaan ku fashilmo inaan ku fashilmin dadweynaha puntland baa la weydiinay hadalkii ugu horeeya anigu wuxuu ahaa madaxweyne waa ku mahadsan intaan la soo shaqeeyey magacaabidda waa ku mahadsan yahay waa la shaqaynayaa waa lagu mahadcelinaya yaa kaloo hadalkaas laga hayaa haddii markay suurtagal wada puntland inaan ka shaqeeyo inaan soomaali u shaqeeyo maxaa diidaya su-aasha ugu dambaysa waxa weeye war xalku halkee jira beel caalam baa noo talisa waxba gacan looguma jiraan anigu arrintaa waa khilaafsanahay waxaan khilaafsanahay soomaaliya dalka keliya burburay ma ahay ruwanda ugu filan ruwanda waxaa ka dhacay genocide lagu laayay 1 milyan oo qof waa lagu kala guuray laba qoys bay ahaayeen waa ku kala dhaqaaqeen laba qodob bay ku guulaysteen waana labada Soomaaliya ku guulaysan doonto innagu waxaan isku walaal ah isku diina isku madhaba isku midaba wax walba waa wadaagnaa wiil iyo walaalkii wiil iyo sodogii wiil iyo saydigiis waxay ku guulaysteen dib heshiisiin sax ah oo qofkii dambiga galay uu yiri dambigaasaan galay hal laga hadlahaa qofkii kalena uu yiri dambigaas gashay walaal waa ku dhaafay dalka wada dhisan caasimada xamar muqdisho ayaa Soomaaliya ku kala tagtay waxa la rabaa in marasha la dhigo muqdisho dadka hantidooda loo cisho dadka walaalaheena oo naga soo baxay wax muusha ka soo tagay 2,000 kiiloomitir baa saqdayla boosaaso maxay u qasbay inaan ka tirsanahay reer kaliya Soomaaliya dhulka inay dhigaan ay yiraahdaan walaalayaal hal isu yimaado caasimadii weeye caasimadii ma qabtaa inay tahay waa loo siman yahay umada Soomaaliyeed waa wada leedahay aynu heshiino dib isku soo noqon nin walba guriisa looga baxo hadiis ha loo cisho cadaalad lagu qaybsado qodobka labaadna waxa weeye good leadership وحجان ونكسب السؤال وبحث. dadka Soomaaliya waa dad qalbi jilicsan waa dad niyad wanaagsan haday arkaan ninka madaxda u ah oo ka iska ilaalinaya xoolahooda oo iyaga u daqranaya oo danta guud u socda wallahi billahi tallahi waxa ku dhaaranaya Soomaaliya xalkeedu soo weeyar baan waxa markaan haysta ma aha nidaam xumo hoggaan xumaan haysata hoggaan fiican baan u baahnay waa maadsantii aad u mahadsan yahay waxaan ka codsanayaa asxaabta su'aalaha aad weydiinaysaan balaxda inay haadaan su'aalo hufan oo cilmi ku dhisan waa mahadsantihiin cidii hore su'aalo u dhexsatay xildhibaanka rabana u yeero ilaahay su-aasha waxay ahayd walaasha sidee lagu helaa xildhibaan aan lacag qaadan soo ma oo aan ka qaadan musharaxiinta aniga marka hal xabad ku sheegay nimanka ugu horeeyay magaciisa ya cali xaaji saaxiibkay waxaan inta platform oo public la ka sheegay ninkii lacag ila soo doontaa waa sheegay ya waxaan leeyahay nin hebel saacad hebel waan tanaa lacagtiisa ballan baan qaaday alaan kaa balan qaaday inta kale ma sheegi karo inta kale aniga taasan sheegay laakiin waa in la keenaa xildhibaano oo aqoon leh dadkuna yaqaanaan dadku waa is yaqaanaan ninkii lacaqaataa dadku waa garanaya ninkii laablaab ku jiro dadku waa garanaya marka waxaa la rabaa dadka ugu fiican inay soo xulaan ma fahamta intaas kaliya wax kale ma ya dadka ugu fiican inay soo xulaan inta kalena ilaahay aan ku dayno ma garanay أجمل الإسلام أكثر حسن الباقي من المنتخب الصومالية حاجة قبل كده رجعنا جوابا نووية بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وقت السوكو ويغفر مثلا تبقى أوليه ميقاك أوليه كالقاه قاته سؤال سيدي وحاوية سؤال شدارك وقلو أنا أقول يا جماعة شقيت الكلي قلت له وزير كاها أنتم مشرحة هذا دوا وقرأ كرينا إنه شيء من الحقبة كيسين وهاوزيرك وهو أكتب سنة وهو معقول سنة مشرح وتقول لي سنة هذه لحين أنا مدحونا أنا مرة أسألني دوما runtii runta ka hadlaya oo u malaynayo qof uga macquulsan hadda inuu soo sharaxay kuwa kale too ma
midana waan rajeynaya inay yimaadaan soomaaliya intii xalka ugu jiro ilaahay ha u soo fududeeyo waa daalan hadda saan u jiitamaynay oo marka odaygu madaxweynaha been lagu sheegay ilaahay xagga ka socotaa iyo haddana loo waxaynayay uus baan taaganaha ilaahay soomaaliya ha u soo sakhiro kii hoggaanka saxda ahaan lahaa waxaan rajeynayaa mudana cali xaaji warsame inuu noqon doono su-aasha haddaan u gudbo waxaan weydiinayaa su-aasha cali xaaji waxaan leeyahay anigu waxaan ogahay waxaad qabanaysid haddii aad soomaaliya isu sharaxdid dadku waxaad u sheegtaa maxaa qabanaysaa maadaama madaxweyne soomaaliya noqotid su-aashayda labaad waxaa weeye mudane xildhibaane haddii musuq maasuq ka bilowday meeshii aad musharaxa ka qaadanaysay ama tolkaagii lacag kaa qaada $5,000 ah sidee lacagtaad usoo gudaysa markaa xagga tagta ila waa u baahan tahay lacag baa kaa baxday maasuqnimada seebaa lagu gudbiyaa asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شيء دواني واحد توصل سعطاء ما عيب واسكري هذا محمود. واحد يتشاعد كنت رئيس قصدي كلية جناح سيادة قالها يتركوها. وحي أنا البي إس يو هاي وحلا يتفضل هذا شاعد البي إس يو وور يعني كاس برانش كودا. يوم شرحين تا مدحتني ماذا يوم حلوانا طبعا. سؤال شيء واحد توصل سعطاء. لما سؤال حرامينا وفيديو شرح مدحوينها دولة الصومالية على حاجة وصلنا waxaan weydiinayaa mudane madaxweyne haddii mudane musharaxa ilaahde haddii aad ku guuleysatid xilka maxaa kaaga qorshaysan dawladda mujrimada ah halkaa ina dhigtay dalkeena baabi'isay Ethiopia loo yaqaano xiriidan cadowgeena Kenya maxaa kaaga qorshaysan siyaasad ka yeelaysaa waxaan kaloo weydiinayaa haddii aad noqoto madaxweynaha Soomaaliya qorshahaaga koowaad ma ka dhigaysaa in aadan Ethiopia tagin marka ugu horeysa kow in aad safaaradda Ethiopia ka saartid kila Soomaaliya oo ay hadda ku dhex taalo aan ognahay ma noo ballan qaadaysaa in aad mudane musharaxaad arrintaas samaynaysid waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo maxaa kaaga qorshaysan gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya oo aan ognahay in aydan hadda musharaxiin tihiin iyo haddii kaleba aydan siinin juhdi weyn gelin dadaal weyn aydan gelin waa mahadsantahay mudane musharax السلام عليكم waxaan salaamay horta aan koow waxaan salaamayaa maskaxda ugu sarreysay oo dalka idinka ah jaamacadda marka wax badanna waa inaa xeelisaan idinka hadda maanta waan idin salaamayaa marka kale waxaan salaamayaa sharaxa iyo inta martida ahba kulligood ani marka su'aal baa wataa waxaa liga saca haddii lagu guro dhagxan uusan buuxin oo jag laga siiyo wasla qayliya markii dhagaxa ma daasada la buuxiyo oo xiran tahayna ma ay sarfmato marka cali xaaj su'aasha aan weydiinay waxay tahay maadaama ahludiinna aad tahay siyaasina aad tahay aqoon maadi iyo diini labadaba aad leedahay nin siyaasadda dhex galo cabaar ka soo shaqaynayana aad tahay waxaan ku weydiinayaa gabdhuhu ma ka qaybgeli karaan baarlamaanka oo 100% ma loo ogolaan karaa inay gabdhuhu talada ilaa waxa naloo diidan yahayna waa naqaanaa oo diintu diidan tahay marka adiga fikrad ahaan maxaad qabtaa adoo diin fiirinaya adoo fiirinaya wadciga Soomaaliya ku jirto iyo xaaladda ay tahay fiirinaya adoo eegaya gabdhaha iyo haweenku habkay doorkay waddanka ka ciyaareen ama habkay u dhaqmayeen adoo eegaya intaasoo dhan maxay kula tahay inay 100% inay heli karaan oo gabdhuhu baarlamaanka geli karaan waxaan u gudbaynaa jawaabaha waxaan jeclahay inaan u yeero xildhibaan abshir xasan abshir maanta waxaan u malaynayaa madasha madaxweynayaashooda inaa su-aalahoodii ka jawaabayo yaa iska caadiya lacagta la qaadayo lacagta laga qaadayo dadku waxay ku fasireen wixii lagu rangaraynayay ya doorashada ma fahamta marka wax badan oo laga dhigi karo ma jirto waa fahamta Soomaali waa niman odayaal baa ku soo heshiiyey meel bay fariisteen qol bay ya ilaa iyo 20 qof 20 mar meeqay jireen 10 mar waa ku dhawaad marka intaasay keeneen marka annaga dadka raadinaya xildhibaanada wax badan oo nooga furan meesha ma jirto waa gaar Soomaali laakiin shacabku waa dhigi karaan wax waa ka dhigi karaan way kan ila waa ka سؤال اللي
سؤال واحد ما دام أتكلم في البرلمان لو تكلم خلف مكان محيي هذه أنا واحد تري طبعا العقل على المية ما يطلعكم معك ما يشان تكون وعلى بحنا يا إنا كتير بشار بحنا يا واجرت شوما وين تاسو دولة الزراعة الصومالية أدمت إلى الحكم وحن رمينا مرة كويرة طبعا شارك لنا على حاجة وصلنا بيدي وحن تعالى مشرح مدحوية على حاجة وصلنا ويرة طبعا سالي سنة وضعية بسم الله الرحمن الرحيم وحرم مرة يا ولد الشنية آخر سؤال بالبيدي سؤال شكرا وحيا حيد محال صوماليا كسر كورتينيسا سياسة وبدبادنيسا دولة فدرالك الصومالية وحرم الله معناتنا كهبلي صوماليا ما أنت واحد جمنا بعض ميل وحتعشر dadka halkaan u badan oo arday weeyeen waxaan idinka codsanayaa inaad akhrisaan dastuurka dowladda Soomaaliya madaxweynaha waxa laga rabaa waana ku celinayaa mar kale madaxweynaha shaqadiisu ma aha inuu barnaamijka dowladda maamulo madaxweynaha xil kama saarna inuu keeno folian book ay ku qoran tahay muxuu ka samaynayaa dib u heshiisiinta muxuu ka samaynayaa waxbarashada muxuu ka samaynayaa amniga muxuu ka madaxweynaha shaqadiisu waxay ku qoran tahay constitution-ka haddaynaan ku noqon dastuurka oo dastuurka dalka inaan ilaalin waxaa dhici doona waxa ku dhacay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah in xilkina ka dhamaado isagoo waxna qaban warina laga fujin laayahay madaxweynaha shaqadiisu waxa weeye waxaan maayay 14 qodob baa ku qoran waxa ugu horeeya madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka waxa laga rabaa inuu soo doorto wasiir رئيس وزير كوباد أو شغالين سواء كانوا الدولة المعمولة وعلى جرى إنه سفارها سووا مجاعه مركز لوسو بدولة ولا لوسو بدولة وزير لوسو بالبنية وعلى جرى إنه ترياش إذا ما مجاعه وعلى جرى الدبلوماسية ده كانوا قابلة وعلى جرى البرلمان كانوا فرح وعلى واحد بوق على كتير ولا قرية وأنا ما كان مشاركين تأي قرية وحكم مشارك بني حرام شغلوا دينا معها إنه يدلك نول با أنو أنت أصلا مشرحه ويدي شغال هذا رئيس الوزراء يسوى مدحوينه هذا رئيس الوزراء ترتبيسي هذا وحلا جاه ربع إلى مركز قرط برنامج كشغله كقوال هاي وأنا لو بقعاوي هذه كلجة ملي لكن هذا مدحوينه ترتبيسي تسوق قربات سبعين نساء وهاي كبر القاضي يعني شغله كوبا وحويه إن الصوت حلو شغالي الدولة دقفك قبل لها استجعل على جرى شغله إنه قطه أنا مدحوينه وحلا جاه ربع إنه كنترولو دستور كايل عليه سؤال شلون بعد وحوي إثيوبيا محك سبعين نساء من بعد كل وحلا ويلي شيطان باقي يبشيدي مكاسو وحلا إنه يابا لقى بقى يموتها وهي الشيطان إنه هو يبشيد واحد هو الشيطان واحد يبشيد واحد معناه وحوي Soomaali baynu nahay waxayna nagu qabsan weynay anu damba Itoobiya ka leeyahay 5 milyan oo Soomaaliya ku nool waana gobolka labaad xagga tirada xagga deegaankana gobolka labaad weey Tigray Soomaaliya waa ka badan tahay waxa ka badan Oromiyada iyo Xabashida kaliya ka badan inta qowmiyada ku nool Itoobiya dantaan ka leeyahay mid ka mid ah Itoobiya iga leedahay maxaa diiday marka adduunku waa dan inaan danta ka wada hadalno oo aan dadkii Soomaaliya ilaaliyo Soomaaliya waxaynu nagu khaladnay oo qabsan weynay ayaa waxaan doonaynaa ku masabidno oo dusha ka saarno cid kale oo Soomaali ah waxaan qabaa problem ka dhacay waxyaalaha la ictiraafo inay shirkada oo toosin loo maleynaya waxa la ka rabaa waxa ugu horeeya waxa weeye wixii naga khaldan waa in ictiraafna wadalkeena yaa cunay war madaxda caasimadda yaa burburiyay war dawladda yaa burburiyay ciidanka yaa burburiyay haybadda yaa burburiyay gabadha ay waraysan yaa qaxooti ka dhigay waxaynu samaynay in Allah la yuqayyiru ma biqawmin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim
haddii arrinta waqooyi maxaad ka samaynaysaa waxaan ka hadlaa real issues arrinta waqooyigu ama somaliland waa arrin adag waa arrin u baahan in si miyira oo wada jira loo galo dowlad kasta waxay leedahay waxa la road map aniga kaliya xalka lagama rabo xalka waxaa laga rabaa madaxweynaha waxaa laga rabaa baarlamaanka waxaa laga rabaa dowladda ama xukuumadda laga rabaa intaa intay isu tagto inaynu keenno wax walaalaheenna u qanci kara innagana u qanci kara innagana qancin kara soomaalinimadana ilaalin kara baa loo baahan yahay waxaa kaba waa la gaari karaa waqti bay u baahan tahay in daacad laga yahay somaliland anigu qayb baan ka ahay anigu reer sool baan ma taqaanin baan maray waxay haysataan qolyaha yaryaro meelaha jooga anigu haaf waxaan reer sool somaliland qayb baan ku leeyahay hooyaday baa ka timid aabbahay hooyadii baa ka timid hooyadeed baa ka timid haaf baan ku leeyahay deegaanka somaliland lagu sheegayo marka qayb baan ka ahay borobaleenka waxbarashada waxaan ku qaatay hargeysa dugsiga qur-aanka iskoolka hargeysaan ku qaatay waxaasoo dhan waxa weeye connection baan leeyahay soomaaliya waxay u baahan inay ka wada hadasho sidee xal loogu raadiyaa qadiyadaas waxaan qabaa in la gaari karo iyagana dhib waa haystaa innagana dhib waa la haystaa su-aasha ugu dambaysa waxa weeye gabdhaha ma siinaysaa qoondadoodii waxyaalaha aad looga soddonka ma aaminsan tahay waxa weeye xildhibaanku mas-uuliyad weeye mas-uuliyaddaasna rag kaliya uma taalo anigu waxaan aaminsanahay shareecada meelay kaga qoran tahay gabar xil baarlamaan looma dhiibi karo anigu kulle intaan ogahay ma aqaan culimmada ka hadashay waxbaa la khaldaya culimmada ka hadashay waxay yidhaahdeen gabdhuhu waa tartamayaan qoondada ha laga daayo ma aysan oranin gabdhuhu ma tartami karaan xilkana looma dhiibi karo inaan daacad laga ahayn ma markay dii sheegahayeen maalintii madashu ay go-aan ku gaadhay gabdhaha in soddon la siiyo golaha wasiirada imisaa ku jiray gabdhaha 3 gabdhood baa ku jiray 3 gabdhood hal maalin laba gabdhood la fadhiyo والمبنتي waxay haday daacad ka tahay raiisul wasaaraha haday daacad ka tahay madaxweynaha haday daacad ka tahay maamulada inay yiraahdaan gabdhaha hal lagu bilaabo dawladda in la siiyo 100%. saddexdii gabdhood ku jiray waxa la farsaxay laba kamid ah oo laba nin baa lagu bedelay hadana oo labada nin lagu bedelay mid kamidihi waxa weeye walaalka hadda doorasho ku jira oo adkaado tababalay waxa lagu bedelay madeer oo ولا ها برادر كام ولالك مثلا ولالك مدحوينها سود ويست marka ina deen ilaahay u sheegay umadana been isu sheegay marka lagu noqdo 4.5 annagu waxaan kamid dadka la war naga daayay war 4.5 hooy halaag buu wadaa war qofka Soomaaliga wiilay gabar ku yimaado aqoontiisa dadnimadiisa diintiisa wax qabadkiisa waana la jiray 4.5 macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye waxa soo xulay oda ka qabiilka gabar ma soo xulayo gabar nin baa qaba ama nin bay caruur dhish warba tayda ma beentayda ka qabiilku wuxuu leeyahay ana leysiyay maadaama leysiyana waxa iskala kursiganin hatta gabar siino reerkeedu ay raacaysa marka qoladii ku celisay 4.5 ayaa ka shaqeys gabrana qofka soo doonaysa طبعا لكن الموضوع انت بروفيسوريه موضوع برامج سؤالها waxa weydiinaya saahay waa afar qaybood noqonaya wana bogsiinaya su'aasha ugu horeysa waxa weydiinaya doctor idil baa weydiinaya waxa weeye su'aashaydu haday markaa sharaxaysay khubadaadii waxa soo qaadatay inay wadaadadu dumarka wax ka sheegaan waxa ognahay inay international community-ga iyo madashii qaranka lagu gaaray 100% gabdhaha la siiyo wadaadadu ay diiday arrintaa waxa marka su'aashadu waxay tahay qofka marka la soo dooranayo ma waxa lagu soo doortaa wax khasara mise rabitaankayga baa ka fiiriyo democracy maxaa weeye gabdhaha waxay leeyihiin 100% waa khasab leeyahay marka inta soo istaagtay waxa noo sharaxaa doctors democracy wuxuu yahay ma in qofka 100% khasab laga dhigaa isagu qofku wuxuu rabo soo doorto taasisa ka baxaya inaan noo sharaxay baan gabdhaha kan ku khasbay oo leeyahay 100% khasab baa ku ma saxba marka loo fiirinayo democracy marka loo fiirinayo soo wasta inaad waxa jeclaha si kaliya oo faniyada loo cadisbaa su'aasha kale waxa weeye waxa weydiinaya sharaxeena عدول عرفة ورسماء أنت كم واحد
baxna qasaya sharaxaanku ma fashilman waan taageersanahay waana nin kartida kasoo bixi kara shaqada loo dhigay cid fashilmatayna ama kama qadin su-aasha weydiinaya waxay tahay mudane maxaa kaga dalan tahay musharaxiinta kale oo noo sheegi karaa taas su-aasha labaad oo adiga ku weydiinaya waxa way bishan xageeda Soomaaliya u soo samayso u wadaa waxaan rabaa gabadha dhexda ku jira loo yeero أولا مسلمات وسلامتي أنا من كل قاعدة مدحتي وأرض الدماء وسلامية وحوي ديني أسأل بدن مدحت ميش بديدا وحوي الصومالي أفرق بيودها وحوي دين تدقن كي يدون كي يلوقدا متى وده ولاجة أفرق ومايا متى ومحي صوت أي صومالي وكلا دات سنتها سأشي كريتو وحوي ديني اللي معك waxaan soo doontaa xildhibaanada odayaal dhaqameedku ma jirtaa waxa ay ku soo xushaan shakhsiga baarlamaanka u tagaya election ha ahaato ama wax kale ha ahaato waxaan weydiinayaa su-aashan sharaxan xilka madaxtinimada Soomaaliya mudane maxaa kaaga qorshaysan qaadkan dhalinyarteena bulooday su-aasha kaleeto waxaan weydiinayaa si kuma waa maxay faa'iidada noogu jirta dadka la dhahayo bedelka ama waa maxay asbaabta ay waddankeena u joogaan su-aasheeda abaarayaano waxaa weydiinayaa mudane cali xaaji warsame mudane musharax anu mudane madaxweyne ku dhihi maayo haddii ilaahay Soomaalida kugu jirto xilka ku jilaa ku kuleysiyo Soomaaliya waxay leedahay calankaasi wuxuu ka shan qaybood wuxuu taageeraa shan Soomaaliyeed shan Soomaalida maanta ma hayno oo ama afka waxa nooga sheegtay in Ethiopia ay ku nool 5 milyan oo Soomaaliya oo calaamad si afka ka saaray 5 milyan Ethiopia nooga tirsanta annagu dhalinyaro Soomaaliyeed baan calankaas ay loo meter koor yaala in shan Soomaali aan leenahay haddii Ethiopia ay qoonsan Soomaali leedahay hadda taas waa loo jawaayo waxaan ka warraynaa ka joogo arrinta dhibaatada haysta oo ciidankeena haysta oo arrinta qaadka maxaa ka qorshaysan hadda mar uu socdo dowlad goboleedyada nabadda dheeraatay ee soo doonay iska yeelay oo ay teen ugu horeyso aysan ogolayna u taliso dowladda Soomaaliyeed aysan ixtiraamin madaxweynaha Soomaaliyeed aysan ixtiraamin dowladda Soomaaliyeed maxaa ka qorshaysan markaa fariisid bixin ku jirto maxaa ka qorshay dowladda maxaa soo sameeyay sababta ma aysan ku doonay waxa weeye Soomaaliya ka soo bilow Sheekh Shariif waxa uu tabi jiray ala shaqada xasan shii waxa uu tabi mujtahid adiga marka xalka fariisi mas'ala kaas kala xasalaysan doonta sidii bunta kale aan jaabi ama ku urdiinada isoo waxa noqon doonta nin Soomaaliyeed oo saakuna qorta xafiiska dul joogtay kale saas oo kale noqon doonta misalin urmeesha geysay urmaadka urkusha ka saar doonta aka bax waxaan u malaysaa mawduuca barnaamijkeedu yahay doorashada cakiran laakiin meel kale loo leexday su-aasha waxaan rabaa marka maadaama xubin doorashooyin ka mid nala joogto nala joogo inaan ku saleeyo arrintan doorashada cakiran anu doorasho cakiran uma arkay doorasho xun oo wadkasa loo arkay su-aasha marka aan rabo waxa weeye nidaam ma jira aad ku kontroolaysaan habkan doorashada u dhacayso maadaama lacag la isticmaalayo ma jira mechanismka idinkaga degan ee doorashadan dhacaysa sida aad fraud ugu kontroolayo waa boobsiinaya uga socdo kaliya waa horta aad baan idin salaamay dhammaantiin musharaxiinta kuwa sharaxan madaxweynaha iyo xildhibaanka sidoo kale rag iyo dumarba inta meesha ka soo qayb gashay waa salaamaya codkeeda hadduu ku gaafaqaan kuma laga shaqeeyaa alle aawo labada su-aal aan weydiinaya waxaa weeye mudane cali xaaji warsame madaxweynaha Soomaaliya u sharaxanta horta guul baan ku rajeynaya laakiin su-aasha waxaa soo hadlay waxa la yidhahdaa heshiisiinta mudane waxaan Soomaaliya ka soo qaaday 12 sano gurub military oo lagula jiro niman Soomaaliyeed oo duurka ku jira ma noo balan qaadaysaa adoo aan dhahayna xagga xisabdir baan isticmaalaya adoo aan dhahay beesha caalamkana taageeraysa inaan wada hadal ilaa shuruuda la kulmin wiilasha Soomaaliyeed duurka ku jira ayagii madaxdooda markooda ka balan qaadaysaa midda labaad waxaa weeye mudane musharax ku hadlay madaxweynaha kureed dunida dal baan dhisaya ciidan ama haya caalima ma kaa go-an tahay inaad dalka kan ciidankiisa iyo haybadiisa aad soo celisid teeda kale waxaa la wiil ninkii fursada dheersada
ma kuu qorshaysan tahay inaad xeryaha Soomaaliya ciidanka lagu tababarayo inaad ka fudud gudaha dalka Soomaaliya oo aan la oran Itoobiya soo tababaray oo aan la oran Uganda soo tababaray oo boqol wala markii si xataa gaarsiga iska keenay aysan maalin diyaar moota labada saarood baan qabaa magacayga waa ka go'an magaca mudana magacayga waxa weeye Maxamed Saciid Maxamed labada saarood baan diyaar u nahay aad u mahadsanyahay ninkaas dhalinyarada dabcan waxaan jeclahay inaan jawaabaha galno su-aalo kala badan baa nala weydiiyey marka waxaan jeclahay su-aalaha inta badanna waxay ku dhacayeen cali xaaji warsame arrinta doorashada cali faysal soo dhow bismillahi raxmaan raxiim su-aasha doorashada oo ahayd see loo kontrooli karaa inaysan dhicin corruption oo lacag iyo xal iswadaagsan waxaa jira waxa la anshaxa musharaxiinta inuu qof kasta oo musharaxa wuxuu saxiixayaa foom baa laga buuxinayaa foomkaas oo ah haddii lagu ogaado qofkan musharaxahi inuu lacag bixiyey haddii lagu caddeeyo lagu ogaado ama lagu qabto in uu disqualification lagu soo meesha laga saaray sharciyada waxaa kaloo jirta markii ergada lasoo hayadilahay oo tababar loo fariyo tababarkaas iyo wacyigelin oo isugu jira in loo sheegayo waxa xildhibaanku mas-uuliyadda xildhibaanku uu dooran doono waxay tahay qofka meesha socda taasoo lagu sharixi doono in aayaha Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya hadii lahay uu ku xiran yahay xildhibaankaas marka ay tahay mas-uuliyad asaga saaran waxaa laga mari doonaa dhinaca hawaayeed oo insha Allah ku jirto wacyigelinta Soomaalida iyo qeyrada loo tuso waxaa kamid ah dhinaca diin ahaaneed oo loo sharixi doono in qofka muslimka ah Ilaahay ku xisaabtami doono maalin baa kamid ah haddii uusan cadaaladda ka farin waxa loo igmaday ee loo saaray marka anagu waxaan ka qaban karno waa dadaalkaas wacyigelinta ergada oo aan wacyigelinayno iyo hadday ku caddaato musharaxa qofka musharaxa ahay in loo ogaado hadday loo ogaado lacag bixiyey meesha laga saari doono su-aasha ka waxay waa maxay sababta Soomaali u kala daadsan tahay waxaan qabaa sababta Soomaali u kala daadsan tahay hidaayato cali xaaji waa ku dhuftay idil waa ka hadashay Soomaali waxay qabtaa problem waxaa jira challenges banaanka nooga yimid iyo kuwa aan wada abuuran laakiin waxaa muhiimadda waxaa weeye intaad qof eedin horta inaad u saxdo daayato markii caalamka Soomaaliya heestii la saaray waxaan mustaqbal walba halkaas xaalad ku hay haddana markaan meesha ka baxno dhaqankeenu ma aha dhaqankii caalamka Soomaaliya u helin lahaa runtii marka noqoto daayato waxaan ka hadlay diinta dadku waxay dhahaan diintu waa markaan ka baxay meesha masaajidka ka baxay baa diinta u bilaabata waa dhaqankan anagu waa sax qofka bini aadamka ay mas-uuliyadda adigoo ku saaran intaad waddan u gudbin waa adigu inaad saxdo qof walba hadduu waxaan qabaatiisa daacad ka noqdo oo Ilaahay ka boqo oo Soomaalinimada fashixada la hagaagina laakiin markii caalamka la saarana waa arkaysa waan awoonaynaa waa ku awooyeynaa halkan hadduu ku dhawaa dafaynaa dhaqanka iyaga aan ku dhaqan markaa banaanka u baxana wax walba waxay kasoo horjeedaan sharafta iyo jiritaanka caalamka kasoo horjeeday dowladda Soomaaliya aad u mahadsanyahay cali faysal dabcan waxaa rabaa idil inuu yeero oo qaybta dumarka islaamiga boqolkiiba 30 bismillahi raxmaani raxiim walaalkeen wuxuu yiri boqolkiiba 30 gabdho ma khasab ma ah laakiin waxa khasabka ka dhigan ku sheegay gabdhuhu bulshadu waa barbay ka yihiin boqolkiiba 60 baa lagu qiyaasaa gabdhaha maanta gabdhihii shalay ma aha 20 sano ka hor ma aha gabdhihii waxbay barteen jaamacaday ka bixeen kumanaan masters wataa jooga PhD holders baa jira waxaa jira gabdho siyaasadda arrimaha siyaasad kusoo takhasusay waddanna markii la sameeyey cilmi baaris waddanka waxaa la yidhi horumarkiisa waddan waxaa lagu cabiraa sida ay haweenkooda ooga qayb qaataan horumarka waddanka marka bulshada qayb ka mid ah haddii la inkiray waddankaas horta bataatan horumar ma gaarayo waxaa kuu soo haray boqolkiiba 30 adigu ruuxayga ma aaminsanin haddii odayaasheena dhaqanka ah
إلا أبدا لقد كنت أدري هويكي قبلي هدي قبلها سين هاي مرني يسقط خبص ما بإمارة أنا الكريم لما أنا أجون كذب بلنبا أنا لمدة أفغانستان affirmative action waxa la dhaho waa loogu daray group gabdha ah lagu daray baarlamaan markii ay wadaadadii iyo nimankii ay diideen gabdhihiina ka qayb galaan annaga raggayagii noo ahaa isimada iyo bahalkii weli waxaa ugu dhiitay hadda researchkii la sameeyey ugu dambeeyey Soomaaliya qabaa'ilada ugu liita gabdhaha waa qabiilka mujaahadiinta la dhaho iyo abgaan waxaa soo raacay walaaleenkii Maraxaanka waa مسيا قبائل كلا أبو فيها قبيل أبو فيها نعم تكتب كونفور قبل وأمها العلمية ما شو واحد يسوي يستعملها هادو يتقنكي قبل وحبرتي أو إلا مستر ميسته إلا قول الجوج ميسو عطوه كلام ميسه تقول واحد برد هاد استاتيستيك مركز سمين كان عليها الدنيا يكون سوماليا وحقوق بدنا وحبتوا هذا حد أخلاقي رجل ما يحب يجرى حسيا intaasoo kunoo gabdha oo mutacalimiina markay waddanka soo noqdaan maxay ku leeyihiin guriga inta ku garanayaan no gabdhaha waxay ka qayb qaadanayaan horumarka dalka taasna waa in la isla ogaado waxaa ii soo raacay marka dhaqankii keliya annagii mana hayste wadaadadeena khayr qorayaasha ahna waan haystaa wadaadku waxa weeye markii ay maqlaan gabar baa waxay u ordaysaa inay waddankeeda horumarkii ka qayb qaadato maalintaasay كتبنا يحل سعر إلى الدكتور وإلى الله أبنائي والله تعالى ودع له الدكتور وأنا لقبتها بريه دبها لو بعلي وحاول بريه دبها لو بعلي حال مدوا كل عسنا كل هو ماشي ونبدأ برشلة السوق هو يلا هدي شارك بين وحدة السوق مركز المية غير يسكت طبعا تعالى دي بقى هذا الحين بريه ندبها السوق أو حوي ديستان أنا قلنا اللي جو الوقت هذا الشيء هو يلا اسمه كذا هو يلا بدنا وحرادين هذا وهو يأخذ وكرين بدنكم حتى الجامعة هذا هو الماستي حبوا بدنكم إنه contribution كأي واحد بكرتين ودك حق وكلية إنه يجيبوا بالعليا مرة واحد ربع عليها ولا واحد يبهد الوايين Soomaaliya burbur baa dhacwaalaysiin dad baa la dhacay guryahoodii waxaa la dhacay wali ma arkin wadaadaha guryaha maxaa islaamka loo dhacay la jooji gabdhihii baa la kursadaayo Soomaali iska daayay waxaan la keenay oo jareerka ah amisom baa gabdhihii Soomaali kursaday heerkaasaan joognaa lagama hadlayo lama dhahayo maxaa gabdhaha loo kursaday dadkii dhallinyaradii markay shaqo la'aan ku dhacday waxay galeen badihii bay ku dhammaadeen lagama hadlayo waxaa dhacay boogiya dhacay qarankii hantidiisii in la dhacay lagama hadlayo maalin walba bambiya waxaan ugu socotay dad innocentiya la laaynayo lagama hadlayo laakiin markii gabadh ay tiraahdo waxaan rabaa waddankayga inaan wax u qabto markaasaan la hadlaya waxaan leeyahay marka gabdhaha waxay ka tirsan yihiin bulshada lama inkiri karo wadaadoo xaal qaada أقول ما أصلتاي ترى هالكاس الدكتور كان نقول دعوة إنسان وتلفزيون ككالتن تي في حرتي سجرة وسيدو كان واحد نقول دعوة إنسان تلفزيون كعالمي سومالي كيبل اسمه حرتي سجرة مقالة سجرة أدو ما سنتي ونروح بالتواجد جيت لنا برامج كني طبعا ونوصل هردون على حاجة ونوصل هردون برامج كلاك سؤال بقى لو شرح بالحوين على حاجة ورسمه حدي مرة بعد ورشلو دبوا دعوة maxay qorshaysan musharaxiintiina madaxtinimada ee dawladda federaalka Soomaaliya su'aasha markaa ka soo gudbo waxaan rabaa inaan u yeero xildhibaan Abshir Xasan soo nooga jawaab su'aasha sidee oo laga meedin u socdaan xildhibaanada baarlamaanka waxaan u maleynayaa su'aashaas inay tahay see adigu u rabtaa in lagu soo qabo marka waxaan dhahayaa qofku inuu aqoon leeyahay qof aqoon leh in la keeno waa hadii kale waxa dhacaysa de qof aqoon leh waa lacagta daldalo ma garan qof aqoon leh iyo qof track record oo soo shaqeeyay sidoo kale anigoo kale BSU baan ka shaqeeyay halkan waxbaan ka dhisay inta meesha aawo qofkii inta in la dhaho intee ka soo shaqeysay
intee markaa kadib la siiyo wixii la siinaa odayaasha aniga I hope inay saas ku doortaan qofka ya equality-ga qof waxaa jira ii sheeg dadka u shaqeeya nabadda ka shaqeeya kaasoo kalena waa la soo xuli karaa ma garata oo dhaqanka soomaalidana yaqaan marka waa intaas waxaan ku shaqeynaa guntiga gabagabadii muxuu xilwaan kale aad looga mahadcelinayaa waxaan jeclahay inaan ila soo dhaweysaan si kal iyo laba الله يشرفه maxaad kaga duwantaa musharaxiinta kale su-aasha oreed waa ka jawaaba ama malaynayaa waxaan sheegay anigu backgroundkii meeshaan ka yimid waa ka gudbayaa soomaaliya halka wadaa meel khayr baan wadaa soomaaliya waxay u baahantaa meel khayr loo kaxeeyo waxaan qabaa in loo baahan yahay inaynu niyadda hagaajisano ilaahay subxaanahu watacaala dadka waa simay hadda kahor Nelson Mandela waxaa la weydiiyey waxaa la bal ka waran dadka wuxuu yidhi qof walba aqoon iyo caqli iyo miisaan uu leeyahay haddaan loo diidin gabar iyo wiil qof kasta wuxuu leeyahay wax ku filan oo bulshada wax ku tari karo haddii aan loo diidin oo laga hor istaagin soomaaliya rajo badan bay leedahay waa dal qani ah waa dalka xeebta ugu dheer leh waa dal islaam oo ilaahay yaqaana waa isku diin waa isku midab waa isku luqad waa isku dhaqan waa isku dal waa 12 milyan leena xukumi waaye waxaan qabaa haddaynu helno ciidina jiili lahayd maslaxadeena ummadda Soomaaliyeed ee daba socon lahayd marka Soomaaliya meel khayr baan u wadaa arrinta qaadka maxaad ka samaynaysaa su-aasha su-aal muhiim ah weeye inkastoo aysan xilli la lahayn barnaamijkeenu ka hadlayna doorashada cakiran haddana waxaan qabaa waa problem Soomaaliya haysta waa problem qof uusan xallin karin dhaqan buu leeyahay diin buu leeyahay dhaqaale buu leeyahay awood iyo maamul buu leeyahay intaasoo waxay u baahan tahay isugu tago inaynu keenno caqli daroogaas in ku joojino waxaad la socotaa halka markaad u baxdo dadka gala 70% gabdho weeye gabdhahaasi qaadku waxay u khasbanaadeen waxay waayeen wixii kale rag wax la qaban lahaa waxay waayeen alternative living wixii bedelka u noqon lahaa haddii loo maalgelin lahaa shaqooyin yar yara waxaa la yidhaahdaa mataqaanaa small finance haddii loo samayn lahaa gabdhahaasi waxay noqon lahayn kuwa soo saara ciyaal baa sugaya waxay u baahan inay miiska u soo saarto rooti raggina lama hayo marka waa arrin u baahan dhinaca socialka in bulshada laga fiiriyo dhinaca diinta laga fiiriyo dhinaca dhaqanka laga fiiriyo la xiriiriyo cashuurta kor loo qaado laga fogeeyo magaalooyinka istiraatiijiyo dheer bay u baahan tahay laakiin waxay dalla qabaa Soomaaliya qaab bay u iman doontaa aakhirkooda ku burin doonta arrinta ku saabsan Soomaaliya shan bay ka kooban tahay Ethiopia ayaa markasta la siiyaa dadka Soomaaliyeed ogaada sideeda horta dhibka ugu weyn oo ka haysta waxa weeye waxa ay waqtiga waxa la saxaabadii markii la dilay Xasan bin Ali bin Abi Talib waa nabiga uu ahaa markii la dilay ayaa niman waxay u yimaadeen culimada waxay yiraahdeen Ciraaq baa dilay nimanka Ciraaq baa dilay markaas waxay yiraahdeen sheekhow ka waran kale adu haday igu dhigto am jirkay ku dilo oo dhigiga raac dharkayga aniga man jaasa ma qormayso intuu la yaabo wuxuu yiri nabiga wiilka uu ahaa disheen haddana waxa ka hadlaysan dhig kale oo يعني لبدا اسمها صومالها صوماليا oo dhan bayna gacan ku hayn jamhuuriyadii ka kala labada qaybood bayna gacan ku hadda waxa warseer loo wada hadli kara oo walaalaheena waqooyiga loo soo celin kara oo loo hadli kara marka hadaynu ka hadalno ciidan haysatiya banaanka waxay noqonaysaa wax la oran karo waa election yani waxayna anagu hadda ku jirinin aynu ka bilowno waxaan gacanta ku hayno marka wax ka qabano waxayna gacanta ku hayno marka aynu ka hadalno anu waxa qaba arinta inaan daacad laga ahayn marka la isku diinayo maxaa yeelay maanta waxa laga hadlayaa hadda muqdisho caasimada ma la aadi kara laga hadlayaa election ma lagu qaban karaa maanta markaan la kulanay nimankii beesha caalamka Kitchen iyo Madeira waxaan weydiinay anaga musharaxiin baan nahay sidee amnigeeda u damaar qaadaysa waxayna balan ma sameynay xagaan ka eegnay xiraan abuurnay hoteelada la geynaya meel isku dhawaadaysan hoteelada waxa ka lagu leeyahay Soomaaliya ummadii Soomaaliya waxa baadiye hoteelada la geeyay Soomaaliya haddayna doorashada marka amnigeeda wax laga qaban karin waxaan hadda idin sheegay 1500 oo qof oo nisa ka tirsan security dalka baa la bedelay yaa lagu bedelay garanaysa inta qaadana waa la bedelay
waxa laga yaabaa inay dad kala duwan oo xataa khatar ku ah musharaxiinta anigu halkaan ka yimid muddaan soo joogay waad ogeydaan wixii ka dhacay meesha xataa waxaa naloo diiday tv-ga qaranka saan idin sheegay iyo weliba radio muqdisho xataa in nala xuso inaan waddanka nimada musharaxiin ka nahay marka arrintu ma sahlana waxay u baahan tahay inaan ka hadalno war doorashadaani ma dhici kartaa mise ma dhici karto marka ugu dambaysana waa kusoo noqonaya marka walaalayaal iyana isku mashquulinin waxayna waxba ka qaban karnin waxay soomaalidu tiraahdaa rag haddaad culaan leh ciidansi u weydo hadda waxaad ku cilbixi kartaa ku cawaaduna waxaad qaban karto one thing at a time hal marba shay aan qabanno maja dhooqdin baa la bixiyaaye arrinta ku saabsan qaadka waa ka jawaabay maamul goboleedyada dowladda dhex madiidan yihiin anigu waxaan qabaa maya waa ka soo shaqeeyey anigu waxaa wasiir layga dhigay bishii february labadeedii 2014 february muqdisho aan joogo laba usbuuc markaan wasiir ahaa muqdisho aan tegay anuu ka wakiila dowladda puntland wasaaradda waxbarashada waxaa ka wada hadlay walaalayaalow see wax wada qabsan karnaa heerkaas annaga wax noo marayaa ardadaan imtixaanka gasha see laga yeelayaa imtixaanka supervisorka shahaadada see laga yeelayaa scholarshipka see laga yeelayaa macallimiinta tababarkooda see laga yeelayaa wixii ka dhacay taariikhda wayaanu ka sheekayn maayo laakiin waxaa idin sheegaya waxaanu annagu u hamuumanoo doonaynin inaanu la shaqeyno dowladda dhexe dowladdii dhexe ayaa ka suurtageli weyday inay maamuladii la shaqayso wixii ka dhacay jubbaland wixii ka dhacay south west waxaa hadda ka dhacaya labada goboloo la khasbayo beledweynaan tegin beledweyne waxaan la kulmay qof kastoo jooga oo aqoon-yahankii odayaashii dhaqankii bahdii waxbarashada kulli waxay walaalayaal waqti hanala siiyo aanu ku heshiino haddii kale waxaan noqonaynaa sida galmudug 2 caasimadood 3 caasimadood baan noqonaynaa leeyahay beledweyne iyo jowhar iyo bulabar haddaa waqti nala siin hadda soo kuma socoto bulabar daa laga badaa halkee loo celiyey jowhar baa loo celiyey war walaalayaal cagta u dhiga war ka daayaan leenahay marka dowladdii dhexe iyadaa diiday maamulada inay la shaqayso taa macnaheedu maaha maamulada inay cirkasala yihiin laakiin waa in la siiyaa fursad lagu wada shaqeeyo su-aasha kale waxay ahayd doorashada cakiran may wax la furankiisa laga yeelaya waxa ugu daran oo doorashadaan aysan xalaal u noqon doonin waa ogaan doontaan waxa weeye in codka la iibsado markii la yidhi aqalka sarena waa 10,000 aqalka hoosena waa 5,000 waxaad ogtihiin qofkaan dhaqaale haysan ma soo geli karto orayda waxaa la iskuul gareeyey oo laga saaray doorashada dadkii wax tari lahaa laakiin dhaqaale aan haysan maxay marka sameeyeen waxay yidhaahdeen xildhibaanow ama musharaxow 5,000 iga bixi ama 10,000 iga bixi waa kuu codaynaya halkee keenaya lacagta intaa tara leh annaga marka waxaa nala ku khasbay inaanu qofkan sii gadano qaar ba hadda ka shaqeynaya magaalada garowe waxaa jooga intaasoo tiim oo ka shaqeynaysa xildhibaanada soo baxaya inay wax ka qabtaan arrinta cali faysal waa nala jooga wuu ka hadlay waxaa rabnaa figa in la yareeyo aqalka sare waa habal la yidhaha la day laakiin aqalka hoose waxaan qabnaa waa soo jeedinay nairobi markaan michael kiiti kula kulnay waxaan ku nidhi arrintan aad ku taageeraysa madasha waa ku khaldantihiin qofka waxaa laga rabaa inuu bixiyo nominal figa $500,000 wax ka badan qofka ma bixin karo aqalka sare iyo musharaxiinta wixii doonaa laga qaado laakiin bal ugu yaraan aqalka hoose qofka ugu badan ha laga qaado wax nominal 500 ama 600 oo qofku bixin karo haddii kale waxaad ka shaqaynaysaan nimanka lacagta haystaa inay dadka soo iibsadaan kullama doorashadu daahdo kullama dad badan ay garan doonaan arrintaa waxaan jeclahay cali faysal iyo siyaad u dega doorashooyinka dambale heer dowlad goboleed inay arrintaa ka hadlaan shabaab see laga yeelaya shabaab arrintooda arrin culus waa marka koobaad waxay leeyahay ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba 99 dadka shabaab gacantooda ku dhintay ummadda Soomaaliyeed waa aqoon-yahankii waa dhalinyaradii waa dumarkii waa kuwii jidka xaaqayay dadkaas waxay u baahan yihiin xal iyaga laftooda waa la laayay dhalinyaro meeday puntland dagaalkii ka dhacay waad garanaysaan waxaa lagu soo qabto hadda xabsiyadan ku jira wiilal 13 14 15 16 jira dadkaas badbaadi iyaga laftooda badbaadiya rabaa Soomaaliya laga badbaadiyana waa rabaa iyaga in la badbaadiyana waa rabaa waxa la rabaa marka tala in la keeno anigu waxaan qabaa inayna ka baqin in la wada hadlo wada hadal la furo arrinta anigu waa ila tahay waxaan tusayaa nimanka la yiraahdo IRA waa ciidanka ka horjeeday dowladda Ingiriiska oo ka dagaalamayay North Ireland nimankaas fallaagay ahaayeen waxa adduunku u qoranayay terrorist inay yihiin dowladda Ingiriisku konto sare la dagaalamayay wax ka badan oo ay xal u weeyeen markii dambe waa la fariistay Sinn Féin ba political
u ah wingiga ama mataqaan dhinaca garabka siyaasadda niman la cv baa madax mataqaan u ah Jerry Adams iyo qaar kale dowladda Ingiriisku khasab bay ku noqotay in la fariisato waa la wada hadlay waxbaa la gaaray dalkii waa la badbaadiyay warshabaab dalka ka daayay dalka ka daayay oo dilka masaajidda ka daayay oo dilka culimada daayay oo dilka aqoonyahanka daayay oo dalkeena sababaha uga dhignina in dalkeena dib loo qabsado oo maanta ciidamada noo jooga waxay u joogaan sababtu waxa weeye dadka waa leeyahay annagana waxa la ka rabaa in iyaga laftooda badbaado waa dhalinyaradeeni oo waliba marka loogu baahi badnaa way 18 19 20 25 soddon dadkii waddanka badbaadin lahaa weeye ha la wada fariisto intooda oo gol wada hadal in la galo tana dalka laga qayb gelin haddaba yaa maamula dalka ninka hadda maamula immigrationka loo dhiibay Kofi muxuu ahaa jiray Kofi wuxuu ahaa shabaab buu ahaa madax jabis buu ahaa Zakariya oo dowladda la taliya hadda muxuu ahaa la mid buu ahaa soo garanaysaa dowladdii Sheekh Shariif in badan oo kamid maxay ahaayeen shabaab bay ahaayeen haddana dowladda ay ka tirsan meel kasii joogaan marka anigu waxaan qabaa geedda aynu u bareerno dhulka aan dhigno iyagana aan badbaadino Soomaalina aan ka badbaadino iyagana aan kala badbaadino arrinta ku saabsan ciidan qaran arrintaas qoraal baa ka sameeyay qofka arkay waa arkay Wardel News baa lagu soo qoray waa ku noqon kartaan waxaa la reforming Somali National all inclusive Somali National Army waxaan qabaa ciidan beled ciidan ma noqonayo ciidanka qaranka oo Soomaalida wada jira ayaa qabaa in la soo celiyo shaqada golaha wasiirada laga rabaa wasiirka gaashaandhigga laga rabaa aniga waxaa laga rabaa inaan doorto ra'iisul wasaare soo xulan kara dadkii dalka wuxuu qaban lahaa ciidanka qaranka dhisi lahaa ka bacdina ku kontrol barnaamijku ii kara ra'iisul wasaaruhu oo ay ka mid tahay waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo arrimihii bulshada iyo ciidankii iyo amnigii iyo dib u dhiskii iyo dib u heshiisiintii barnaamijku ii kara inaan ku qiimeeyo dabeedna aan kula xisaabtamo hadduu shaqada ka soo bixi waayo aan ka wareejiyo mid kala keeno hadduu shaqada ka soo baxana aan kula shaqeeyo aan ku garab istaago su-aasha ugu dambaysa waxay ahayd haddii doorashada dib loo dhigo maxaad samaynaysaa arrintaa maanta waa ka hadalay waxaa sameynana idiin sheegi maayo idinka laakiin waxaa idiin sheegayaa waxa naga suurtooba doorashada maanta waxaan ka hadalay haddaan doorashada dib loo dhigo waa ka fiirsanaynaa inaan ka qayb galo doorashada soo socda anigu professional baan ahay aqoon-yahan baan ahay waa ka maarmi karaa waxaan jeclaa inaan Puntland ka shaqeeyo waxaan jeclaa inaan dal ka shaqeeyo ma suurtagelin sabab kasta ku suurtageli weeye waxaan hadda ku fikraa inaan kor wax ka qabto haddii dhulka la dhigi waayo oo la diido dadka in loo qabto doorasho xor oo xalaal oo madaxda qaranku ay Soomaaliya u dalin waayaan oo ay ka fiirsadaan maslaxadda maalmaha xukunka ay sii joogayaan oo aysan u qiimaysnayn dalkeena ka wada hadlaysan maanta oo dhan oo u socda meel uusan ka soo noqon karinin waxay noqonaysaa waxaan qiimo lahayn laga qayb galo waxaan waxba soo kordhinaynin waqti dhumis bay noqonaysaa qofku markaa inuu ka raacdatay la tahay bay la tahay waa la hadalay maantay madaxda qarankana waa la hadalay waxaan abiil baan u soo jeedinaya baaq baan u soo jeedinaya ilaahay baa ninkuu doona xukunka u dhiibi doona xasan sheekh maxamuud ninna isma lahayn xukunka waa helaya warmarmabeentayda qofna isma lahayn waa helaya waxaa lahaa sheekh shariif ama madaxweyne cabduuli baa heli doona ilaahay baa bixiya qul illahuma maalika almulki tuuti lmulka man tashaau watansicu lmulka miman tashaau watucizu man tashaau watudillu man tashaa war haddii doorashadan heli doono ninkaana aan la aqoon waxaa maslaxaddu ku jirtaa inaan ummadeenna u danayno dalkeenna u danayno dhallinyaradeenna u danayno dumarkeenna u danayno aan isu nimaadno aan doorashada ku heshiino dhulka aan dhigno ilaahay baa u dhiibi doona qof dalkaan iyo dadkaan maslaxadu soo celin kara haddii ay qowlga wax ka tahay waxaan rabaa inaan ku soo xiro hadal kooban hadalkaasi waxa weeye waan jeclahay inay soo xiro aad baan ugu mahadcelinayaa tiimka igala qayb galay runtii dad aqoon-yahana oo maslaxadda Soomaaliya garanaya weeye idil maxamuud iyo cali faysal iyo xildhibaanka abshir iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan mahadcelinayaa bahda mataqaana soo diyaarisay barnaamijkan waxaan rajaynayaa inay barnaamijka ku soo celiyaan mashruuciinta u timaado doonna la galo idinkana allah idin sharfo aad iyo aad baad u mahadsantihiin Soomaaliya guul baan u rajaynaynaa mustaqbal fiican baan rajaynaynaa ilaahay ha ugu hagaajiyo بسم الله الرحمن الرحيم آدي آدم بانسانيين waxaan jeclaan lahaa inaan gacmaha isugu dhufano dadka maanta sharafta leh oo barnaamijka soo fadhiya waxaan kala doonayaa inaan u mahadceliyo ninkii maanta noo xiriirinayay oo liila shaqo fiican qabtay shareeco yaasiin shareeco dadka manhaan
waxaan kaloo doonayaa dhammaan u mahadceliyo PSU waxaan kaloo mahadcelin saaxiibkay oo barnaamijkan ay suurto gasheen hadda awishina joogi lahaa burhaan aadan ninkaas aad iyo aad u mahadsanyahay halkaas fagaaraha badanaa waxaan galnaa sawiro taariikhi ah marka halkan ayaan inaan maanta garoowe marka ay dhammaato ka hor laakiin intaan dhammaan ka hor waxaan ku gabagabaynaa aniga badanaa waxaa waaye waxaa naga dhexaynaa ilaalino xoogaa waa la isxagtay waa sookay normal waaye waxaas waa inoo loo baahan yahay laakiin mar walba muhiimadda waxay tahay ujeedkeenu waa weeyahay inaan wada ilaashano waxa naga dhexeeya taasoo ah Soomaaliya marka waxaan wada qaadaynaa heestii calanka anagoo wada istaagay dhammaanteen haddaa aytu waxbaa laga bedelay laakiin mid rasmiga codkana ku qaadaynaa Soomaaliyey tooso isku tiirsadaye hadbakiina taagtarane taageera waligiine Soomaaliyey tooso isku tiirsadaye hadbakiina taagtarane taageera waligiine waxaanu ooyaayo ilmadu iiga qubanayso listicmaalka diidaayo la adoonsadaanaye Soomaaliyey tooso isku tiirsadaye hadbakiina taagtarane taageera waligiine Soomaaliya garoowe Puntland waa mahadsantihiin fagaarihii kulankii 23aad sidaas inagu dhammaaday thank you very much